assalaamu calaykum. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala insaanka iyo jinnigaba u abuuray in ay isaga caabudaan keligiisa, wuxuuna kala dooransiiyey iimaanka iyo gaalnimada. Wuxuuna zaman walba addoommadiisa u soo diri jiray ambiyadiisa si ay ugu hanuuniyaan rabbigooda oo ay u tusiyaan sidii ay ku caabudi lahaayeen rabbigooda subxaanahu wa tacaala. Ambiyadii ugu badnaydna waxaa laga soo saaray banu Israa'iil. Kuwii ugu waaweynaa ambiyadaasna waxaa ka mid ahaa Nebiyullaahi Daawuud calayhi salaam. Qisooyinkiisa iyo mucjisooyinkiisuna waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu layaabka iyo mucjisada badnaa qisooyinka. Balse sidee buu Nebiyullaahi Daawuud calayhi salaam boqor ugu noqday banu Israa'iil oo xukunkana kala wareegay Taaluut? Mucjisooyinkiisuna maxay ahaayeen? Muxuu nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam ugu tilmaamay in uu ahaa nebigii ugu weynaa oo loogu jeclaa? Muuqaalkan gudihiisa ayaan idinkaga jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan. Daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Kadib markii uu Alle subxaanahu wa tacaala Taaluut u doortay in uu boqor u noqdo banu Israa'iil, ayuu boqor Taaluut ku dhaqaaqay in uu isku soo aruuriyo oo uu kulmiyo dhammaan raggii iyo dhallinyaradii ugu xoogga badnayd banu Israa'iil si ay ula soo dagaalamaan oo ay uga guulaystaan Jaaluut oo ahaa boqor daalim ah oo gumaysan jiray banu Israa'iil. Waxaana dhallinyaradaas la kulmiyey ka mid ahaa wiil dhallinyaro ah oo cimrigiisu jiray 17 sano, kaasoo ahaa Nebiyullaahi Daawuud calayhi salaam. Markii ay labadii ciidan iska hor yimaadeen, ayuu Jaaluudkii laciinka ahaa intuu soo baxay codsaday qof mubaaraso u baxa. Mubaaraso waxaa loo yaqaanaa in labada ciidan ee dagaalamaya ay mid mid isugu diraan geesiyaashooda ka hor inta aysan labada ciidan iskula dhexgelin seefahooda. Markii uu Jaaluud dalbaday qof mubaaraso u baxa, ayuu Nebi Daawuud calayhi salaam boqor Taaluut ka fasax qaatay in uu u oggolaado in uu isagu mubaaraso u baxo Jaaluud oo la soo dagaalamo. Markaas buu Taaluut u oggolaaday oo u fasaxay. Balse Jaaluud wuxuu ahaa nin aad u weyn oo jir iyo joogba leh oo sidoo kale murqihiisu ay aad u waaweynaayeen, halka Daawuudna uu ahaa wiil caato ah oo dhallinyaro ah oo markii la eego aysan ka muuqan tabar badan. Markaas buu Jaaluud ku jeesjeesay oo ku yidhi, laabo oo qof kale ii soo dir, maxaa yeelay anigu ma jecli in aan dilo qof sidaada oo kale ah. Markaas buu Daawuud ugu jawaabay, balse anigu waxaan jeclahay in aan ku dilo. Kadibna Daawuud ayaa intuu dhagax ka soo baxsaday jeebkiisa oo warafkiisa dhex gashtay yidhi, bismillaah ilaahi Ibraahiima wa Isxaaq. Kadibna intuu wareejistay ayuu ku tuuray Jaaluud. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala dabayl u sakhiray, taasoo aad u siyaadisay xooggii iyo xawaarihii uu ku socday dhagaxan. Markaas buu Jaaluud ka asiibay madaxa, isla markiiba wuxuu Jaaluud dhulka ku dhacay isagoo mayd ah. Taaluut ciidankiisa ayaa ku guulaystay dagaalkaas, wuxuuna Taaluut horay Daawuud ugu ballan qaaday in uu gabadhiisa u guurin doono haddii uu dilo Jaaluud, wuuna u oofiyey ballantii uu ka qaaday. Wuxuu Daawuud calayhi salaam zawj u noqday boqorka gabadhiisa. Sidoo kale waxaa wada jeclaaday dhammaan banu Israa'iil, taasoo sababtay in ay dhankiisa u janjeeraan oo ay aad u taageeraan in uu isagu boqor u noqdo, waxayna ka saramariyeen Taaluut. Kadibna waxay boqornimadu u wareegtay Daawuud calayhi salaam. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala isugu daray boqornimo iyo nebinimo iyo khayr adduunyo iyo mid aakhiroba. Waana waxaan inta badan dhicin, waxaa naadir ah in nebi uu noqdo boqor. Allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
daa'uud ayaa dilay jaaluud, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala wada siiyey boqornimo iyo nebinimo, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala baray wuxuu doonay. intaas kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nebi daawuud ku manaystay dhowr mucjizo oo aad u layaab badan. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u sakhiray buuraha iyo shimbiraha, kuwaasoo la tasbiixsan jiray. wuxuu kaloo u sakhiray inuu biraha ku dhalaaliyo gacmihiisa oo uu siduu doono ka yeesho isagoon burus iyo dab midna adeegsan. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey zabuur, wuxuuna siiyey boqortooyo aad u weyn. allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. waxaan daawud u sakhirnay buuraha iyo shimbiraha iyagoo la tasbiixsan jiray. waxaana daawud barnay samaynta duruucyada dagaalka si aad gaashaan uga dhigataan ood isaga difaacdaan dhibkii idin gaari lahaa. miyaadan alle uga mahadcelinaynin subxaanahu wa tacaala? wuxuuna daawud xilligaas ka hor ka shaqayn jiray samaynta duruucyada iyo aaladaha dagaalka. alle ayaana ugu kaalmeeyey inuu duruucyada ka sameeyo biraha si qoomkiisu ay cadowgooda isaga difaacaan markii ay gelayaan dagaalka. gacantiisa ayuu intuu ku qabto ku dhalaalin jiray biraha, kadibna wuxuu ka dhigan jiray qaabkii uu doono. alle ayaana subxaanahu wa tacaala biraha u sakhiray ilaa uu awooday inuu gacantiisa ku dhalaaliyo isagoon u baahan dab iyo burus midna. nebi daawud calayhi salaam wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee duruucyada ka sameeyey biraha iyo waxyaabaha la midka ah. xilligaas wixii ka horreeyeyna waxaa laga samayn jiray jiingadaha iyo waxyaabaha la midka ah. waxaa la sheegaa inuu maalin walba samayn jiray 1 dirac, kadibna uu ku iibin jiray 6,000 oo dirham. wuxuuna nabigeena muxamed sallallahu calayhi wasallam arrinkaas ka yidhi: inna atyaba maa akala arrajulu min kasbih wa inna nabiya allahi daawuud kaana ya'kulu min kasbi yadih. qofka bani aadamka ah wuxuu cuno waxa ugu wanaagsan wuxuu isagu shaqaysto. nebiyullaahi daawuudna wuxuu wax ka cuni jiray wuxuu gacantiisa ku kasbaday. sidoo kale wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nebi daawuud siiyey cod aad u qurux badan oo uusan jirin axad kale oo la siiyey. sidii uu nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam u siiyey qurux gaar ah ayuu alle subxaanahu wa tacaala nebi daa'uudna u siiyey cod gaar ah oo aad u qurux badan. markii uu codkiisa ku akhriyo zabuurka, shimbiraha ayaa korkiisa ku meeraysan jiray si ay u dhagaystaan codkiisa, waxayna xayawaanadu isugu imaan jireen hareerihiisa iyagoo khushuucsan oo la tasbiixsanaya. sidoo kale buuraha ayaa u jawaabi jiray oo iyagana la tasbiixsan jiray markii uu tasbiixsanayo. allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: wadkur cabdanaa daawuuda dal aydi innahu awaab innaa sakharna aljibaala macahu yusabbixna bilcashiyi waalishraaq. xasuuso oo xus nebi muxamedow addoonkayga daa'uud, kaasoo ahaa mid aad u xoog badan ama aad ugu xoog badan cadowga alle iyo daacada rabbigiisa. wuxuu ahaa mid aad u towbadkeen badan. annaga ayaana u sakhirnay buuraha, waxay buuruhu la tasbiixsan jireen subax iyo galabba. sidoo kale wuxuu nebi daa'uud calayhi salaam ka mid ahaa ambiyadii ugu alle caabudista badnayd. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala dartiisa u soomay 50 sano, taasoo ahayd kala bar cimrigiisa. wuxuuna ahaan jiray mid maalinna sooma maalinna afura. wuxuuna nabigeena muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi arrintaas ka yidhi: axabu salaati ila allah salaatu daa'uud calayhi salaam وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam, salaaddii uu alle subxaanahu wa tacaala ugu jeclaa salaadaha waxay ahayd salaaddii daa'uud calayhi salaam. soonkii uu alle subxaanahu wa tacaala ugu jeclaana wuxuu ahaa soonkii daa'uud calayhi salaam. habeenkii kala bar waa uu seexan jiray, 3 meeloodoo meelna salaad buu u istaagi jiray, sudusna waa uu seexan jiray. sidoo kale wuxuu ahaa qaadi dadka ugu kala xukumiya doodahooda. dhacdooyinkii ugu caansanaa ee uu la kulmayna waxaa ka mid ahayd qisadan soo socota. waxaa ibnu cabbaas laga wariyey in uu yidhi, 2 nin oo sac isku haysatay ayaa waxay doodooda iskula tageen nebiyullaahi daawuud calayhi salaam. 2da nin ayaa midkood wuxuu midka kale ku sheeganayaa in uu saciisa ka qaatay, midka kalena wuxuu inkirsanaa in uu isaga ka qaatay. markaas buu nebi daawuud calayhi salaam dacwadooda dib ugu dhigtay ilaa iyo habeenkii. markii la gaaray habeenkii, wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nebi daa'uud u soo waxyooday in uu dilo ninkan mudaciga ah ee sheeganaya in saciisa laga qaatay. markii la waabariistay ayuu nebi daawuud calayhi salaam ku yidhi, wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ii soo waxyooday in aan ku dilo. anigu waan ku dilayaa oo ka noqosho ma jirto, balse waxaad iiga warantaa maxay tahay qisada ka dambaysa dacwada aad ninkan ku haysato. markaas buu yidhi, wallaahi nebigii ilaahayow, waa runtayda oo aniga ayaa iska lahaa saca, xaq baana u leeyahay dacwadda, balse waxaan hadda ka hor dilay ninkan aabbihiisa. markaas buu nebi daa'uud calayhi salaam amray in la dilo, waana la dilay. nebi daa'uud sha'nigiisa iyo qiimihiisa ayaa aad ugu weynaaday banu israa'iil dhexdooda, aad bayna ula dhaceen oo ugu hoggaansameen. sidoo kale waxaa la wariyaa in nebi daa'uud calayhi salaam uu noolaa 100 sano oo dhammaystiran, kadibna waa la oofsaday. wuxuuna qabay 100 xaas. mid ka mid ah xaasaskaas ayaana u dhashay nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam. kadib geeridii nebi daa'uud calayhi salaam waxaa boqortooyada iyo nebinimadaba ka dhaxlay wiilkiisa oo ahaa nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam. haddaan ka waranno sidii loo oofsaday nebiyullaahi daawuud calayhi salaam, wuxuu abi hurayra allaha ka raalli noqdee nebiga sala allahu calayhi wasalama ka wariyey in uu yidhi, daa'uud wuxuu ahaa mid aad u qiiro badan, wuxuu ahaa mid aad uga maseera ahalkiisa. markii uu baxayana albaabka ayuu ku xiri jiray, cidna uma aysan soo geli jirin ahalkiisa ilaa uu ka soo laabto. wuxuu yidhi, maalin maalmaha ka mid ah ayuu albaabka intuu ku xiray ka soo tagay. markaas bay xaaskiisu waxay aragtay nin dhex taagan guriga bartamihiisa. markaas bay waxay tidhi, war yaa ku dhex jira guriga? xaggee buu ka soo galay ninkan? albaabkuubu noo xiran yahay, wallaahi waan ku ceeboobnay daa'uud. kadibna waxaa yimid daa'uud calayhi salaam. markaas buu arkay ninkii oo guriga dhex taagan. markaas buu nebi daawuud calayhi salaam ku yidhi, yaa tahay? wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay mid aanan boqorrada ka haybaysan, oo xijaab i celiyana uusan jirin, ama meel iga xirantana aysan jirin. markaas buu nebi daawuud calayhi salaam ogaaday in uu yahay malakul mowdka, wuxuuna ku yidhi, sidaas hadday tahay, wallaahi waxaad tahay boqorrada boqorkooda, marxaban biamrillaah. kadibna waa uu joogay ilaa nafta laga qaaday oo laga oofsaday. markii nebi daawuud calayhi salaam la dhaqay oo la karfanay oo hawshiisa laga baxay, ayaa waxaa dhacday in ay qorraxdu ku soo baxday. markaas buu nebi sulaymaan calayhi salaam shimbiraha ku yidhi, u hooseeya daawuud. markaas bay shimbiruhu u hooseeyeen ilaa ay dhulkiiba mugdi uga dhigeen. allena subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya nebi daawuud wuxuu yidhi, wa inna lahu cindanaa lazulfaa wa xusna ma'aab. waxaan ka mid yeelnay kuwa noogu dhow maalinka qiyaamaha, waxaana u diyaarinay masiir aad u wanaagsan.
sidoo kale wuxuu Maalik binu Diinaar isagoo aayaddan fasiraya yidhi wuxuu Nebi Daawuud calayhi salaam maalinka qiyaamaha ag istaagi doonaa carshiga lugihiisa. markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala ku odhan doonaa, yaa Daawuud, maanta igu ammaan codkaagii wanaagsanaa ee quruxda badnaa, kaasoo aad igu ammaani jirtay markaad adduunyada joogtay. markaas buu dhahayaa, Ilaahayow, sidee baan kuugu ammaanaa, soo igama aadan qaadin? markaas buu ku odhanayaa, maanta ayaan kuu soo celiyey. markaas buu Nebi Daawuud calayhi salaam codkiisa intuu kor u qaado Alle subxaanahu wa tacaala ku xusi doonaa. haddaan u imaanno xidigii ama astaantii Nebi Daawuud ee 3 geesoodka ahayd, waxaa la sheegaa in laga soo gaabiyey magaciisa, maadaama markii loo eego luuqadda Cibraaniga uu qaabkeeda u ekaa xarafka ugu horeeya iyo xarafka ugu dambeeya magaca Daawuud, oo ahaa nebigii ugu caansanaa ambiyadii banu Israa'iil, kaasoo ah xarafka daal, waana sababta loogu xiray Daawuud calayhi salaam. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. hana iloobina in aad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiska. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.